xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka Soomaali galbeed ama ismaamulka Soomaalida Itoobiya gobolka Shabeelle degmada Dhanaan ayaa dhaliil u jeediyay maamulka Mustafa Cagjar ee deegaankaasi waxayna sheegeen inuu ka gaabiyay waxyaabihii looga baahnaa maadaama markii uu ku jiray ololahan isbedel doonka ah uu ka cabanayay tacdiye kana deegaankaasi waxayna sheegeen in dadka deegaanka ay qabaan dhaliilo ay u jeedinayaan maamulka ciidanka New Police iyo guud ahaan maamulka xubno ka mid ah jaaliyadda oo ka cabanaya dareenkoodana muujiyay ayaa ka hadlay hadaladoodii waxaan ka mid ahay qurba joogta South Africa u dhalatay dawlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya baaq ayaan halka ka diraynaa baaqaas wuxuu ku saabsan yahay khaasatan gobolka Shabeelle gaar ahaan degmada Dhanaan iyo nawaaxigeeda saan ognahayba magaalada degmada Dhanaan oo xilligii Mustafa Maxamed uu meesha qabsaday ilaa xilligan aan joogno qalalaase iyo dhibaato marhaba aan ka bixin Soomaali dhulka way wada leedahay deegaankaas haddana waa la kala leeyahay waxaynu wada leenahay cawskaynu wada leenahay biyahana waynu wada leenahay laakiin deegaanka waan kala leenahay waxaan rabaa laba kelmadood inaan ka hadlo kelmadi waa baaqaas waxaan u diraynaa dawladda dhexe federaalka Itoobiya dawlad deegaanka culimo awdiinta ururada xuquuq iyo xornimo doonka oday beelaadada dhibaatada ka baaqa waxaan u diraynaa dadkaas ama matala ummadda ama uqaash dadka labanteedii iyo wajigiisa waxaan leenahay dawladda dhexe ee ummadda matasha haddaad dhibaatada idinku ka dambaysaan oo idinku samaynaysaan ilaahay baan idinka dacwanaynaa Allah naga soo keen qabto waxaan ka koobanahay jaaliyadda ka soo jeeda waxa weeye gobolka Qorraxay waxa weeye gobolka Shabeelle nogob waxaan ka soo jeedaa goboladaas hadda waxa weeye dadka halkan jooga waxaan dhammaantahay wada cambaaraynaa wixii ka dhacay halka waxa weeye waxaad moodaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida in uusan ku tusaale qaadanin kii ka horreeyay halku maray waxaan u soo noqonayaa taliyaha Lee Police waxaad moodaa laftigiisa inuusan ku tusaale qaadanin Lee Police-kii hore ficiladii xumaa ee deegaanka ka sameeyeen laftigiisa wax inuusan ku tusaale qaadanin waxa cadeynaysa Lee Police hadda soo dhibaatooyinka ay deegaanka wadaan dhibaatada deegaanka ka jirta way soo noqotay especially degmada Dhanaan iyo nawaaxigeeda gudoomiyaha gobolka Shabeelle waxa weeye hoggaanka Shabeelle si gaar ah u cambaaraynayna haddaysan iyagu ay laftkooda aysan dhibaatada qayb weyn ka ahayn hal dhinac dhibaato lama gaarsiin intaas oo qof baa jajaban oo cadeymadeeda hayna waan isina cadeymadeeda warbaahinta oo dhan waan soo bandhigi doonaa dagaal baa meesha ka dhacay dil baa dhacay kolkii beelihii labada beelood qayb ka mid ah la dilay oo qaybta Dhanaan aha wax laga soo qabtay qayb badan oo la dhaawacay wixii dadka oo dhib ah ee ku dhacay hal shakhsi oo loo soo xiray iyo hal shakhsi oo cadaalad la keenay ma ayna jirin waxa dhacday in goday lagu laayay dad wax loo soo qabtay ma jiro haddana deegaankii laftiisa gabdha iyo dumar in lagu laayay wax loo soo qabtay ma jiro bulshada iyo deegaanka dadka wada nool wax dhibaato hadda ka hor kama dhaxayn haddii ay wax dhacaanna waxa xalisan jiray wax garadka iyo culimada dadka deegaanka hadalkayga marka waxaan ku soo koobayaa qaabka meesha ka jira ee dadka loo dhibaatanayo aan cambaaraynaa bulshadana cid kasta oo wax gaadhay si guud waxaan ugu baaqaynaa walaalaatiin wax idin kama dhaxayaan dhib kasta idin kala gaadhay nabadgelyaha lagu dhameeyo aqligu ha shaqeeyo dhinaca wanaagsan wax ka fiiriya xukuumaddan shalay timid ka horeysana way jirtay way tagi doontaa laakiin inagu dadkan waligood meeshay wada deganaanayaan Idris Abdi Hassan TV caalamiga Universal Pretoria Koonfur Afrika